muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa mean deviation about the median of data celceliska tiroosin ee uu leeyahay daahfurka xog. Mean deviation of median of data waxaa lagu helaa qaacidadan midan odhanaysa sum of frequency times absolute value of midpoint m of each class minus median of the data divided by sum of the frequency. Isugeynta markaasi frequency-ga oo lagu dhuftay midpoint-ga uu leeyahay class kasta oo laga jaray median-ka ay leedahay markaas xogta oo dhan oo loo qaybiyay isugeynta frequencies-ka ay leedahay xogtu. Sidoo kale median-ka xogta waxaa lagu heli doonaa qaacidadan midaas oo ah lower bound L oo loo geeyay markaasi number of items n oo loo qaybiyay 2 oo laga jaray cumulative frequency of a class before class median. Cumulative frequency uu leeyahay classka ka horeeya classka go'aamin doona median-ka oo loo qaybiyay frequency of class median fc oo lagu dhuftay markaas the size of class interval size-ka uu yeelanayo class interval midkaas oo ah classka aan ka go'aamin doono median. Example markaas tusaale calculate ka shaqee mean deviation. Mean deviation-ka ay leedahay ee median daahfurka of a data xogtaas oo ka muuqata dhinacani markaasi midigta. Shaxdeer gaaban waxaan haysanaa number of classes. Classka koowaad waxa uu ka kooban yahay eber ilaa 5. Classka labaad waxa uu ka kooban yahay 6 ilaa 11. Classka koowaad wuxuu ka kooban yahay eber ilaa 5. Classka labaad wuxuu ka kooban yahay 6 ilaa 11. Classka saddexaad 12 ilaa 17. Classka afraad 18 ilaa 23. Classka shanaad 24 ilaa 29. class kasta ay frequencies buu leeyahay. Classka koowaad eber ilaa 5 frequency-googu waa 5. Classka labaad 6 ilaa 11 frequency-googu waa 8. Classka saddexaad 12 ilaa 17 frequency-googu waa 7. 18 ilaa 23 waa classka afraad frequencies-googa wuxuu noqonayaa 10. Classka shanaad 24 ilaa 29 frequencies-googu wuxuu yahay markaasi 3. xogtan hadda waxaa laga rabaa inaan calculate gareyno mean deviation-ka ay leedahay. Saan uga shaqeynaa hadda mean deviation-ka tallaabada koowaad ee qaadana waxay tahay inaan qorno classes-ka aan haysanay iyo qiimayaashooda. Tallaabada labaad frequency-ga class kasta. Classka koowaad oo ah eber ilaa 5 frequencies-googu wuxuu ahaa markaasi 5. Classka labaad oo ah 6 ilaa 11 frequency-googu wuxuu ahaa 8. frequency macnaheedu waxay tahay inta jeer ay soo noqonayaan. Marka xogta la tirinayo nambarada 6 ilaa 11 inta ay ku jiraan jeer waxay tahay markaasi 8. waxaa laga yaabaa nambarada 6 ilaa 11 inaysan dhammaantoodba ku wada jirin oo nambarada qaar ka maqan yihiin qaarna ku jira. saas daraadeed marka la isku wada daro haddaba laga yaabaa qaar inay soo noqdaan qaar inay xogtaba ku jirin. 6 ilaa 11 sum of frequency-googa ama inta jeer ay xogtaasi ku jiraan waxay tahay markaasi 8. 12 ilaa 17 frequency-googu iyaguna wuxuu yahay 7. sidoo kale 18 ilaa 23 frequency-googu wuxuu yahay 10. sidoo kale 24 ilaa 29 frequency-googu wuxuu yahay 3. tani waa tallaabada koowaad ee loo baahan yahay inaan qaadno. saas daraadeed shaxdii dhinaca midigta ay nooga muuqatay siday u dhannayd iyada waan la wareegnay. mar haddii aan la wareegnay uma baahnin inay noo sii taalo markaasi position-kan oo ah platform-kan isticmaali doono inaan ku sameyno markaasi calculation-keena gaarka ah. waayahay tallaabada labaad ee qaadana waxay tahay inaan soo saarno cumulative frequency-ga. Cumulative frequency-ga macnihiisu waxay tahay classka koowaad cumulative frequency-giisu waa itself. Classka labaad markaan joogno laakiin waxaan isku daranaa labada frequency-ga classka koowaad iyo frequency-ga classka labaad waa 5 iyo 8 markaan isku darno waa 13. cumulative frequency-ga classka saddexaadi waa 17 oo lagu daray 13 midaas oo ah markaas 20. cumulative frequency-ga classka afraad wuxuu yahay 10 oo lagu daray 20 midaas oo ah 30.
cumulative frequency classka u dambeeya waa 3 oo lagu daray 30 midaas oo ah 33. haddaba sum of frequencies-ka markaan isku wada darno waxay isku noqonayaan 33. tallaabada labaad ee qaadana waxay tahay inaan go'aamino midpoint-ga oo class kasta ay leeyahay. aan ka bilowno markaasi classka koowaad ayaan ka bilaabi doonaa. classka koowaad wuxuu ka kooban yahay markaasi nambarada kala ah eber ilaa iyo 5. midpoint-ga classkan maxaa lagu heli doonaa? nambarka ugu horeeya classka waa eber oo lagu daray nambarka ugu sarreeya classka waa 5 loona qaybiyey 2. eber oo lagu daray 5 waxay tahay 5 loo qaybiyey 2. 5 loo qaybiyey 2 markaas waxay tahay 2 markaasi 5. sidaas daraadeed midpoint-ga classka koowaad waxay tahay 2.5. waxaa noo hadhay midpoint-ga classka labaad. classka labaad haddaba waa classkee? waa classka ka kooban nambarada 6 ilaa iyo markaasi 11. midpoint-ga classkan maxaan ku helaynaa? nambarka ugu hooseeya classkan waa 6 oo lagu daray nambarka ugu sarreeya ee classkan waa 11 loona qaybiyey markaasi 2. 6 loo geeyey 11 markaa waxay tahay 17 loo qaybiyey 2 waa 8 markaasi 0.5. sidaas daraadeed classka labaad midpoint-giisu wuxuu yahay 8.5. waxau yahay 8 markaasi 5. classka kaas ku xigayay wuxuu yahay classka markaasi saddexaad ee xogteena. classka saddexaad ee xogta wuxuu ka kooban yahay nambarada 12 ilaa iyo markaasi 17. midpoint-ga classkan waxaan ku helaynaa markaa nambarka ugu yar ee classkan oo ah 12 laguna daray nambarka ugu badan ee classkan oo ah 17 oo loo qaybiyey markaasi 2. 12 oo loo geeyey 17 waxay tahay 29 loo qaybiyey markaas 2. 29 loo qaybiyey 2na waxay tahay 14 markaasi 5. sidaas daraadeed midpoint-ga classka markaasi saddexaad wuxuu yahay 14.5. classka kaa ku xigaya wuxuu yahay markaas class 4. classka afraad ee xogteena wuxuu ka kooban yahay nambarada 18 ilaa iyo 23. midpoint-ga classkan waxaan ku helaynaa nambarka ugu yar ee classkan oo ah 18 oo lagu daray nambarka ugu badan ee classkaas oo ah 23 loona qaybiyey 2. 18 oo lagu daray 23 waxay tahay 41 loo qaybiyey 2. 41 oo loo qaybiyey markaasi 2 waxay tahay 20 markaasi 5. sidaas daraadeed midpoint-ga classkan waxay tahay 20.5. classka kaa ku xigayay waa classka 24 ilaa 29 24 oo lagu daray markaasi 29 waxay tahay 53. 53 loo qaybiyey 2na waxay tahay 26.5. sidaas daraadeed midpoint-ga classkani wuxuu yahay 26.5. shaxdan qaybtii saddexaad saas ayaan ku buuxinay. shaxda qaybteeda afraad ayaynu hadda u gudbi doonaa. shaxda qaybteena afraad waxaa naga rabaa inaan go'aamino shaxdani qaybteeda afraad waxaa laynaga rabaa inaan go'aaminayo wuxuu yahay absolute value-ga markaa midpoint-ga aan haysanay class kasta oo laga jaray median-ka xogta. haddana median-kii xogta ma hayno. waxa qasaba inaan helno haddaba median-ka ay leedahay xogtan. si aan median-ka xogta u helno haddaba qaacidada median-ka isticmaalayna midaas oo ahayd median-ka in lagu helo lower bound-ka classka median-ka go'aaminaya oo loo geeyey n oo u taagan markaasi number of observations-ka ama total number of frequencies-ka oo loo qaybiyey 2 lagana jaray cumulative frequency b oo ah cumulative frequency-ga classka before ka horeeya markaasi classka go'aaminaya class median-ka iyo sidoo kale fc oo u taagan frequency-ga class median-ka oo loo qaybiyey the size of class interval. haddaba waa inaan soo helnaa halkan xogtani waxay ka kooban tahay
5 class ay ka kooban tahay. Waa kee classka go'aamin doona medianka ee loo bixin doono class median. Si aan u helno waxaan u baahanahay inaan ogaano qiimaha n. qiimaha n waxay u taagan tahay the sum of frequencies-ka, tirada frequencies-ka ee meesha inoogu jira, midaasoo ah markaas 33. n waxaan u qaybin doonaa markaasi 2 si aan u go'aamino class medianka. n loo qaybiyo 2 marka waxay noqon doontaa 33 oo loo qaybiyo markaasi 2, midaasoo kula mid ah 16.5. 16.5 haddaba waxaan ka raadin doonaa cumulative frequencies-keena. cumulative frequencies-keena wax 16 la yidhaahdo kuma jiro. cumulative frequencies-keena waxay ka kooban yihiin 5, 13, 20, 30, 33. haddaba waxaan raadinaynaa tiro 16.5 ka sarreysa, hase ahaatee marka la barbar dhigo tirooyinka kale ee 16 ka sarreeya aad ugu soo dhow 16. tiradaasi waxay tahay markaas 20. cumulative frequency-ga 20aad ayuu noqon doonaa. cumulative frequency-gaasi 20 waxa uu markaasi cumulative frequency u yahay kalaaska saddexaad oo ah kalaaska ka kooban 12 ilaa 17. sidaas daraaddeed class median-keenu waxau noqon doonaa class median-ka xogteenu waxa uu noqon doonaa markaasi third class, kalaaska saddexaad. kalaaska saddexaad ayuu noqon doonaa markaasi class median-keena. kalaaska saddexaad waa kee? waa midka ka kooban nambarada 12 ilaa iyo markaasi 17. haddaba kalaaska saddexaad wuxuu leeyahay upper bound iyo sidoo kale lower bound. lower bound-ka PL baan soo gaabsan karnaa ama L kaliya soo gaabsan karnaa. waxa uu yahay waxaa go'aamin doona tirada yar 12. lower bound-keegu muxuu yahay markaas? waxa uu yahay 11.5. si lower bound-ka u hesho waxaa samayn doontaa waxaa ka jari doontaa 0.5 kaliya. saas daraaddeed waa 11.5. haddii sidoo kale number 12 waxaad heli kartaa upper bound-keega oo upper bound-ka 12 waa maxay? 0.5 maad ku dari waa 12.5. sidoo kale kalaaska sare oo 17 waxaa raadin doontaa isagana upper bound-kiisa. upper bound-ka kalaaska sare muxuu noqon doonaa haddaba? lower bound-ka kalaaska hoose iyo upper bound-ka kalaaska sare inaan kala aqoonsano ayaa loo baahan yahay. haddaba upper bound-ka kalaaska sare waxuu noqon doonaa 17 markaas 0.5. 17 maadaama yahay kalaaska ugu sarreeya ee xogta ama nambarka ugu sarreeya ee kalaaska saddexaad, upper bound-kiisa waxuu noqon doonaa 17.5. sidoo kale isla nambarkan 17 waxaad go'aamin kartaa lower bound-kiisa. lower bound wuxuu noqon doonaa intan 17 oo laga jaray 0.5 waa 16.5. hadda waxaan helnay lower bound-kii iyo upper bound-kii ay u lahaa markaasi kalaaska aan u bixinay class median-ka, midkaasoo ah third class. waxaa la rabaa inaan go'aamino cumulative frequency-ga. haddaba cumulative frequency B oo ah cumulative frequency-ga uu yeelanayo kalaaska before ka horeeya markaasi class median-ka. class median-ka haddaba waxuu yahay kalaaska saddexaad. kalaaska ka horeeya kaasi waa kalaaska labaad. kalaaska labaad muxuu yahay haddaba cumulative frequency-giisu waa 13. saas daraaddeed cumulative frequency B waxay tahay 13. sidoo kale FC inaan go'aamino ayaa la rabaa oo ah frequency-ga class median-ka. class median-ka waxa weeye hadda kalaaska saddexaad, midkaasoo ah kalaaska ka kooban tirooyinka 12 ilaa 17. saas daraaddeed kalaaskaasi frequency-giisu waxa uu yahay 7. sidoo kale waxaa la rabaa inaan go'aamino classes W, midkaasoo lagu helo upper bound-ka class median-ka oo laga jaray lower bound-ka class median-ka. upper bound-ka class median-ka waxa uu yahay 17.5 oo laga jaray lower bound-ka class median-kana waxa uu yahay 11.5. 17.5 oo laga jaray 11.5 markaa waxay tahay 6. saas daraaddeed W waxay kula mid tahay qiimaha 6. haddaba waxaynu heli karnaa median-keeni maadaama aan haysano xog markaasi nagu filan. median-kii haddaba xogteena waxuu noola mid yahay L. L waxay u taagan tahay markaasi lower bound-ka. lower bound-ka xogteena waxa waa markaasi 11.5 oo lagu daray N. N-ta waxay u taagan tahay sum of frequency-ga oo ah markaasi 33. saas daraaddeed waa 33 loo qaybiyo markaasi 2 laga jaray cumulative frequency B. cumulative frequency-ga kalaaska ka horeeya kalaaska median-ka ka go'aaminay waxuu soo baxay bay ahayd 13 oo loo qaybiyo markaa dhammaantoodba FC.
FC waxay u taagan tahay frequency of class medium frequency uu leeyahay classka aynu ka go'aaminay mediumka midkaas oo ah 7 oo lagu dhuftay class size-ka ama width of class medium baa loo yaqaanaa. waxaa soo baxay isaguna oo upper bound oo laga jiray lower bound class mediumka 6 waxay kula mid tahay midan 11.5 plus 33 markaas aan u qaybino 2 waa 16.5 oo laga jaray 13 laguna dhuftay 6 loona qaybiyay markaa dhammaantoodba 7. sidaas daraadeed mediumkii waxa uu kula mid yahay 11.5 oo lagu daray 16.5 markaas waxaanu ka jiri doonaa 13 markaasi 5 waa 3.5 oo loo qaybiyay 7 laguna dhuftay 6. sidaas daraadeed mediumkii waxa uu noola mid yahay 11.5 plus 3.5 loo qaybiyay 7 waxay tahay 0.5 oo lagu dhuftay markaa 6. sidaas daraadeed mediumkii waxa uu noola mid yahay 11.5 oo lagu daray 6 oo lagu dhuftay 0.5 markaa waxay tahay 3. sidaas daraadeed mediumka xogteenu waxa uu yahay 14 markaasi 5. mar mediumkii xogta haddaan haysano shaxda hadda waan xalin karnaa booska afraad ee inagu bannaan. waxaa la rabaa inaan soo saarno haddaba absolute value-ga midpoint-ga oo laga jaray mediumka xogta aynu soo saarnay oo uu yeelanaya markaasi class walba. aan ka bilowno markaasi classka koowaad midpoint-giisu waxa uu yahay 2 markaasi 0.5 oo laga jaray mediumkiina waxaan soo saarnay 14 markaasi 0.5 2.5 oo laga jaray 14.5 markaa waxa uu yahay 12 minus 12 absolute value of minus 12 midkaasoo kula mid ah positive 12. sidaas daraadeed classka koowaad absolute value of midpoint-ga oo laga jaray mediumka xogtiisu waxa uu yahay 12. waxaan u gudubnaa classka labaad midpoint-giisu waxa uu yahay 8.5 oo laga jaray 14.5 midkaasoo kula mid ah absolute value of minus 6 absolute value minus 6 markaan ka saarno wuxuu noqon doonaa positive 6. absolute value-ga tirooyinku kuwa negative-ka ahna positive ay kaga baxaan oo positive-ka ahna sidoo kale positive 6. sidoo kale aan u gudubno classka saddexaad absolute value of midpoint-ga classkan uu leeyahay waxay tahay 14.5 oo laga jaray mediumkii xogta aynu soo helnay 14.5 oo laga jaray 14.5 waxay tahay eber. absolute value of eberna waa maxay eber. saas daraadeed absolute value of midpoint-ga oo laga jaray mediumka classka saddexaad waxa uu yahay eber. sidoo kale aan u gudubno classka afraad absolute value of midpoint-ga uu classkani leeyahay waxay tahay 20.5 oo laga jaray mediumkii aan soo saarnay oo ah 14.5 midaasoo kula mid ah positive 6.
positive 6 absolute value aan ka saarno positive 6 bay ka bixi doonta. saas daraadeed absolute value of midpointiga oo laga jaray mediumka kalaaska afraad waxay tahay 6. sidoo kale kalaaska ugu dambeeya oo kalaaska shanaad wuxuu noqon doonaa absolute value of midpointiga oo kalaaskani leeyahay waxay tahay 26 markaasi 0.5 oo laga jaray mediumka xogtuna had iyo jeer waxa uu yahay 14.5. midaasoo kula mid ah absolute value of 26.5 waxaan ka jari doonaa 14 markaasi 0.5 waxay kula mid tahay positive 12. absolute value aan ka saarno positive 12 bay kaga baxaysaa. halkaa waxaa ku idil qaabka aan go'aamin lahayn markaa aan go'aaminaynay absolute value of midpointiga oo laga jaray mediumka ay leedahay markaas xogta aynu halkan ku haynaay. hadda tallaabada xigta ayaynu qaadi doonaa. waxay tahay tallaabada xigta aan qaadi doonaa waxaan ku dhufan doonaa frequency-ga class kasta ayuu leeyahay. waxaan ku dhufanaynaa absolute value of midpointiga oo laga jaray mediumka class kasta ayuu leeyahay. aan ka bilowna kalaaska koobaad. kalaaska koobaad frequency-giisu waxa uu yahay markaasi 5 oo lagu dhuftay kalaaska koobaad midpointigiisa oo laga jaray medium waxa uu yahay 12. 5 lagu dhuftay 12 60. saas daraadeed kalaaska koobaad frequency-ga oo lagu dhuftay midpointiga oo laga jaray mediumku waxa uu yahay 60. kalaaska labaad frequency-giisu waxa uu yahay 8 oo lagu dhuftay midpointiga oo laga jaray mediumkiisuna waa 6. midkaasoo kula mid ah 48. saas daraadeed kalaaskan xigana frequency-giisa oo lagu dhuftay absolute value of midpointiga oo laga jaray mediumku waxa uu yahay 48. kalaaska saddexaad frequency-giisu waxa uu yahay markaasi 7 oo lagu dhuftay midpointiga oo laga jaray class mediumkiisuna waxa uu yahay 0. saas daraadeed 7 lagu dhuftay eber waa eber. kalaaska afraad frequency-giisu waxa uu yahay 10 oo lagu dhuftay absolute value of midpointiga oo laga jaray mediumkuna waxa uu yahay 6. 10 lagu dhuftay 6 waa 60. sidoo kale kalaaska ugu dambeeya oo ah 5th kalaaska shanaad frequency-giisu waxa uu yahay 3 oo lagu dhuftay absolute value of midpointigiisa oo laga jaray mediumkuna waxay ahayd 12. saas daraadeed 3 lagu dhuftay 12 36. waxaan isku darno haddaba dhammaantood sum of waxaa lanaga rabaa inaan soo saarno suginta frequency-ga oo lagu dhuftay absolute value of midpointiga oo laga jaray mediumka waa 60 oo lagu daray 48 oo loo geeyay eber oo loo geeyay 60 oo loo geeyay 36. marka la isku wada daro waxay noqon doonaan 200 iyo markaasi 8 204. marka la isku wada daro waxay noqon doonaan 200 iyo markaas 4. hadda waxaan qaadi doonaa tallaabadii ugu dambeysay midaasoo aynu ku go'aaminayno mean deviation. tallaabada waxaan ku go'aamin doonaa markaasi mean deviation-ka uu leeyahay mediumka xog midkaasoo aynu ku helanay isku daridda markaasi frequency-ga oo lagu dhuftay absolute value of midpointiga oo laga jaray mediumka uu leeyahay class kasta oo loo qaybiyay sum of isku daridda frequencies-ka xogta ay ka koobanta. saas daraadeed mean deviation of the medium of xogtan aan haysanaay waxaa noqon doonaa markaan isku darnay frequency-ga oo lagu dhuftay midpointiga oo laga jaray absolute value of midpointiga oo laga jaray mediumka waxaa soo wada baxay isku darkoodu 204 oo loo qaybiyay total number of frequencies kuna waxa uu ahaa 33.
saas daraadeed mean deviation of the median of data waxay noqon doonaa 204 oo loo qeybiyo markaasi 203 midaasoo kula mid ah 204 oo loo qeybiyo markaasi 33 midaasoo kula mid ah 6.1818 soo noqon doona saas daraadeed waxaan qori karnaa 6.18 kaliya inagoo qorayna in two decimal place maxaa laga wadaa inagoo ogolaanayna laba number oo keliya ahay laba tiro oo keliya ahay inay markaasi pointiga ka xigaan dhinaca markaasi midigta saas daraadeed mean deviation of the median of data waxa uu yahay 6.8